bismillahi rahmaani rahiim guud ahaan aad baan idinkaga mahad celinaynaa bahda saxaafadda sidaad maanta nagala qayb qaadateen labada gudoomiyaha caawa xilka banaynaya gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed iyo gudoomiyaha caawa xilka la wareegi doona gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Risow maantay waxay sameeyeen inay kormeeraan oo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir gudoomiye Taabid oo ku soo wareejiyo xarumaha ay sida gaarka u leedahay iyo hantida ay leedahay dawladda hoose ee gobolka Banaadir inta aan la gaarin xil wareejinta oo caawa ka dhici doonta aqalka dawladda hoose hadii Ilaahay idmo waxa laga bilaabay xarunta dawladda hoose ee official governo ama aqalka dawladda hoose halkaas ayaa xafiis shanta xafiis ee laga xukumo lagu wareejiyay dhammaan gudoonka sare cusub ee la soo magacaabay iyo gudoonka sare hore kadib waxa la tagay xarunta la yiraahdo xarunta ciidanka ilaalada deegaanka xamar ayay la tagay iyo dad dhigista oo waxa muhiim u ah dawladda waxa muhiim u ah sidoo kale waxa la tagay xarunta Aquadoto oo ah xarunta ay degan yihiin shan waaxood oo waaxda dabdamiska waaxda gaadiidka waaxda bulaacadaha iyo jidadka iyo waaxda qorsheynta iyo tababarada ay degan yihiin ugu dambeyntii waxa halkan ayaa nimid halkan waa xarunta labaad ee gaadiidka dawladda hoose ay leedahay waxa iga dambeeya waa gaadiidkii dhamaa ee dawladda hoose ay lahayd intaas gudoomiye Taabid ayaa tusayay u sharaxayay waxyaabaha ay yihiin si uu gudoomiyaha cusub walaalkeen injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yarisow oo la wareego hawsha hortaala ee culusna oo halkiisa ka sii wado hadii Ilaahay idmo dhammaan waxaan soo dhaweynaynaa gudoonka cusub ee la soo magacaabay sida gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda xoghayaha guud ee gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo loo magacaabay gabar oo Basma Amir Shakeete la yiraahdo iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud oo asagu xilka hore u hayay haddana lagu celiyay oo asagu xilka sii haya dhamaantood way mahadsan yihiin insha Allah caawa xil wareejintii labada gudoomiye ayaa xilka kala wareegi doona kadibna hawshii gobolkan oo ayaa bilaabo doonta maalinta bariya adinkana ma santiin Mustaqbal Radio warbaahin wax dhista